Xafiiska Xiraalyaha Guud ee Qaranka ayaa sheegay inuu gacanta ku hayo baarista dad ku eedeysan dambiyo ay ka mid yihiin xaalufinta deegaanka. Dadkaasi uu xafiisku ku eedeeyay falalkan ayaa la sheegay inay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. Xiraalyaha Guud ee Qaranka Suleymaan Maxamed Maxamuud oo maanta shir saxaafadda ugu qabtay magaalada Muqdisho ayaa uga digay ganacsatada uu sheegay in ay faa'iido ka raadiyaan falalkan. Waxa uu sheegay inay wax u dhimi karaan deegaanka isla markaana ay mararka qaar sababi karaan abaaraha iyo musiibooyinka kale ee soo noqnoqda. Xafiiska Xiraalyaha Guud ee Qaranku waxa uu gacanta ku hayaa baarista dad ku eedeysan dambiyada deegaanka oo ay ugu horeyso jarista dhirta, gubista dhirta, ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha, ka ganacsiga iyo dhoofinta duurjoogta iyo kalluumeysiga sharci darrada ah. Xafiiska Xiraalyaha Guud ee Qaranku waxa uu xog hordhac ah ku hayaa in eedeysanayaasha qaybtood ay joogaan wadanka gudihiisa, qaybta kalena ay joogaan wadamada dariska ah iyo wadamada Carabta oo ah meesha loo dhoofiyo dhuxusha ayna sii marto, kuwaas oo ah shabakad isku xiran ganacsiyo kale ku dhex qarinaya dambigan si loogu arko inay ka beec mushtarayaan ganacsi xalaal ah iyaga oo mararka qaarna dhaqaya lacagaha laga sameeyo falalkaas si loo tirtiro raadadka lacagahaas. Xafiisku waxa uu sidoo kaleeto la socdaa in faa'iidooyinka laga sameeyo falalkaas sharci darrada ah in ay qaybtood gacanta u galaan argagixisaduna ay qayb ka tahay suuqa ganacsiga dhoofinta dhuxusha. Xafiiska Xiraalyaha Guud ee Qaranku waxa uu u digayaa ganacsatada isku dayaysa inay faa'iidooyin ka raadiyaan falal liddi ku ah deegaanka, taasoo halis weyn ku ah wadankeena sanad kastana sababa in deegaanka iyo bii'ada Soomaaliya uu isbedel ku dhaco ayna soo laabtaan abaaro, daadad, nabaad guur, xaaluf oo lagu waayo dad iyo dunyaba. Xafiisku waxa uu baaris qoto dheer ku hayaa kiisaskan waxa uuna ku daba jiraa dad ku eedeysan dambiyadan. Maxkamad ayuuna hor keeni doonaa marka ay baaristu soo gabagabowdo si dadkaas loogu qaado sharciga. Dhanka kale, Xiraalyaha ayaa sheegay in sidoo kale uu xafiiskiisu gacanta ku hayo baarista shakhsiyaad ku howlan daabulka iyo ka ganacsiga dadka. Dhanka kale, Xafiiska Xiraalyaha Guud ee Qaranku waxa uu sidoo kaleeto gacanta ku hayaa baarista dad ku eedeysan faldambiyeedka daabulka iyo ka ganacsiga dadka. Xafiisku wuxuu gacanta ku hayaa cadeymo hordhac ah oo ay ka mid yihiin baasabooro, dukumiintiyo qaybtood la been abuurtay, kuwaas oo muujinaya in ay ku lug leeyihiin mas'uuliyiin dowladeed oo jagooyin kala duwan ka haya dowladda. Xafiiska Xiraalyaha Guud ee Qaranku wuxuu sidoo kaleeto u digayaa qof kasta oo isku daya inuu faa'iido ka raadiyo daabulka dadka. Waxa uuna farayaa hay-adda socdaalka Soomaaliya inay ka hortagaan daabulka iyo ka ganacsiga dadka ayna qaadaan tallaabooyinka ku habboon si loo xaqiijiyo in dadka aan lagu daabulin sifo sharci darro ah. Maxamuud Soo Faysana, Telefishinka Universal, Muqdisho.